xiriirka caalamiga ee ciyaaraha ee FIFA ayaa diiday dalab ama racfaan ka yimid kooxda Chelsea oo ay markaasi ka qaadatay 2 xilli ciyaareed oo laga ganaaxay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. war maanta FIFA ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ay markaasi FIFA diiday racfaanka ay qaadatay kooxda Chelsea isla markaana aysan wax ciyaartoy cusub ah soo iibsan karin 2 xilli ciyaareed oo soo socota. taasoo ka dhigan in FIFA ay ku adkaysatay go'aankii ay hore uga soo saartay Chelsea ee ay ku eedeysay in ay caruur yar suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka soo iibsatay sida darteedna ganaax 2 xilli ciyaareed ah lagu riday. laakiin Chelsea ayaa la sheegayaa in haatan ay markan dacwadeeda la aadeyso maxkamadda isboortiga ee CAS iyadoo doonaysa markaasi in dalabkeedu ugu dambeeyay maxkamaddu gudbiso oo ay kaga codsanayso in laga dhaafo ganaaxa 2 xilli ciyaareed ah ee suuqa laga saaray. Chelsea xilli ciyaareedka soo socda iyo kan ku xigaba suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxba kama soo gadan karto haddii aan laga qaadin ganaaxa lagu soo rogay. go'aanka ugu dambeeya ee ay sugayso ayaana ah midka ay gaarto maxkamadda CAS ee arbitrayaasha. 42 ciyaartoy ayaa kooxda Chelsea amaah kaga maqan oo u kala dheela kooxo kala duwan oo kubadda cagta waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Chelsea ciyaartoydaas qaar ka mid ah ay si degdeg ah dib ugu soo ceshan doonto haddii aan laga qaadin ganaaxa laga saaray suuqa 2 xilli ciyaareed ee soo socota. horey FIFA waxay sidaan oo kale ganaax suuqa kaga saartay dhowr xilli ciyaareed ah kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Atletico Madrid markii lagu helay in ay ku xadgudbeen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. waxaana ay Chelsea mari doontaa wadadaasi oo kale iyadoo ay u baahan tahay in ay markaasi suuqa kala iibsiga ciyaartoyda mar hadduu ka ganaaxan yahay ciyaartoydeeda amaahda kaga maqan ku xoojiso kooxda. dhanka iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aanu eegno waxyaabihii ku soo kordhay kooxda PSG na waxa ay doonaysaa indhaha ku haysaa James Rodriguez ciyaaryahanka Real Madrid ee amaahda kula jooga Bayern Munich inay markaasi la soo wareegto haddii Neymar Jr uu dhaqaaqo kooxda Real Madrid. warar ay qorayaan wargeysyada ciyaaraha ayaa sheegaya in Neymar ay u badan tahay in uu kooxda Real Madrid u wareego xilli ciyaareedkan sida darteedna PSG waxay doonaysaa in ay Rodriguez ay soo qaadato oo ay Bayern Munich la soo wareegto si markaasi ciyaartoygaasi ugu xoojiso safkeeda kooxda. kooxda Inter Milan ayaa heshiis la gaartay macallinkii hore ee kooxda Chelsea Antonio Conte kaasoo ay doonayso inuu bedelo macallinka haatan ee kooxda. Tutto Sport ayaa ku warantay Antonio Conte oo heshiis la gaaray kooxdaasi Inter Milan isla markaana bisha June ee soo socota uu noqon doono macallinka kooxda. laakiin Juventus ayaa doonaysa iyadoo inay ka dulqaado Inter Milan macallin Antonio Conte. madaxweynaha kooxda Juventus Andrea Agnelli ayaa go'aansaday inuu u dhaqaaqo soo xirigelinta Antonio Conte inuu dib ugu soo celiyo kooxda oo uu horey mar u maamuli jiray. Antonio Conte ayaa waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay ahaa shaqo la'aan kadib markii kooxda Chelsea ay shaqada ka ciirisay. haatan waxay u muuqataa in uu Talyaaniga dib ugu laaban doono oo uu maamuli doono midkood Inter Milan iyo Juventus.